أحبك ربي فصلى عليك، عليك الصلاة وأزكى السلام. نبي الهدى يا رسول السلام، ويا مرسل رحمة للأنام. ومثلك لا تلد الأمهات، ولو عاش كل فتى ألف عام. ومثلك لا تلد الأمهات، ولو عاش كل فتى ألف عام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، walaalaha ilaahay dartiisu jeclahay meel walba adduunkaad ka joogtaan, assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. waa xalaqadii ugu dambeysay, xalaqadii 29aad oo barnaamijkii aan ugu talagalnay bisha ramadaan oo cinwaankiisu ahaa wamaa arsalnaaka ilaa raxmatan lilcaalamiin. nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam siiradiisa ama noloshiisa qeyb ka mid ah aan ka sheekeynayni. nebiyu raxma, ilaahi subxaanahu watacaala suu ku yidhi fabimaa raxmatin min allahi linta lahum walow kunta fadan galiida alqalbi lanfaduu min xawli wamaa arsalnaaka ilaa raxmatan lilcaalamiin. nebi maxamed sal alla alay wasalam wuxuu yihi bucithtu raxiiman, waxaa lii soo diray, lam ubcad lacaanan wainamaa bucithtu raxmatan lilcaalamiin. lima soo dirin qof lacnadoo adag inaan noqdo, waxaa lii soo diray qof naxariisto inaan noqdo. cashirkeena maanta wuxuu ku socdaa gabdhaha walaalihii ayuu ku socdaa. siirada nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam waxaan u baranay inaan ku camal falno waaye. 26 xalaqo waxaan kasoo sheekeynay nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam siduu ula tacaamuli jiray. marba qeybaan kasoo sheekeynay jamaadaadka, xayawaanaadka suu ula tacaamuli jiray, cadowga suu ula tacaamuli jiray, qofka xaasid suu ula tacaamuli jiray, qofka xanuunsan suu ula tacaamuli jiray, qofka dhinta suu ula tacaamuli jiray, gabdhaha siduu ula tacaamuli jiray, xaasaska siduu ula tacaamuli jiray, hooyooyinka siduu ula tacaamuli jiray, waalidiin siduu ula tacaamuli jiray, agoonta siduu ula tacaamuli jiray, garoobta siduu ula tacaamuli jiray. ahlumma jara annaymid. xalaqadii lasoo dhaafay waxay khaas u ahayd ragga. xalaqadii lasoo kasii oo 27aadna sideedaadna waxay ahayd dadka dhana ugu talagalnay. xalaqada gebagabada wa khitaamuhu miskina gabdhaha walaalihii ay ku socotaa. waxaan rabaa inaan dhaho gabadha walaashii qaaliga ah, raxmadda nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam, wanaagaaga iyo raxmadda nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam uu ku siiyey meel kama helaysid. gabadha walaashii waxaan rabaa inaan dhaho diinta islaamka sharaftay ku siisay qof ku siinaya ma lahan. diinta islaamka meeshii ku gaarsiisay qof ku gaarsiinaya ma lahan. hooyuu kaa dhigay oo jannada lugahaaga hoostiisuu geliyey. gabaruu kaa dhigay in lagu tarbiyadeeyo oo wax laguu qabto jannu rasuul sal alla alay wasalam saaray. oo qofkii 2 gabar si fiican u tarbiyeeyo janno inuu galaayo, qofkii 2 gabar si fiican u tarbiyeeyo naarta inay ka celinayso. hooyaa tahoo jannaa lagugu gala, gabaraa tahoo jannaa lagugu gala, xaasaa tahayo wanaagaaga iyo meeshaada ayuu ninka meel ku gaara. nin meel gaari haddaa aragtay gabaraa ka dambayso, ama hooyo fiicanaa soo tarbiyayso soo gaarsiisay, ama xaas fiican ayaa meel gaarsiisay. idan meel kastaa tahay qiimuu kuu sameeyey nabigeena sala allahu calayhi wasalam. hooyo markaa tahayna wuxuu yidhi hala karaameeyo. ninkii markuu yimi 3 darajo ku siiyey aabbaha kaa horumariyey. gabar markaa noqoteen wuxuu yidhi 2 qofkii dhalane jannuu ku galaa. xaas markaa noqoteen wuxuu yidhi khiyaarukum liahlihi wa ana khiyaarukum liahli. qofka idinku akhyaarsan markuu ragga la hadlayo wuxuu yidhi waa qofka dumarka u fiican waay. bal rasuul sal ly slam dardaarankiisa istawsuu binnisaa'i khayran, dumarka khayr ha loo dardaarmuu yidhi, dumarka khayr ha lala dhaqmuu yidhi. idan walaashii qaaliga ee waxaan rabaa siirada nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam inaad baratid. ku faan nebigaaga, ku faan diintaada, ku faan xijaabkaaga, ku faan amarka uu ku amrayo diintaada iyo ku amrayso, ku faan ninkaaga adeecitaanka aad adeecaysid, ku faan because diintaadaa ku amartay. waxaan rabaa gabar jilcan oo raxmad leh inaad noqotid,
hooyo wanaagsan inaad noqotid, caruur wanaagsan inaad noo soo saartidaan rabaa. caruurta waxaa soo saarta hooyo, aabba ma ahan. imaam shaafici hooyaa soo saartay, imaam axmed hooyaa soo saartay. qof walba haddaa fiirisid hooyaa soo saartay. qof meel gaari hooyaa soo gaarsiisay, darajadaa soo gaarsiisay. hooyada markii ilmaha si fiican usoo tarbiyeyso, ilmahaas ilmo fiican uu noqona. waxaa arkaysaa caruuraa arkaysaa hooyadood waa Soomaali, aabahoodna ajnabi waa. af Soomaaliga yaqaanaan, luqada aabahoodana ma yaqaanaan. maxaa keenay? hooyada luqadii ku hadlaysa waaye. hooyaa tahay, meesha laguu soo noqonayaa tahay, sakankiyaa tahay. caruurta fiican haddaa soo saarto hooyo wanaagsan oo noqonaysa. ninkaaga u naxariiso, ninka meel kale ma lahan. ilaahi subxaanahu watacaala markuu ka sheekeynaya guurka wuxuu yidhi litaskunuu ilayhaa. qofka lagu degaayo adiga waa, ninka ma aha. ninka waxaa la yidhi xaasaan idiin samaynay saa ugu degtaan. adiga waa qofka lagugu degaayo. adigii haddaa naar noqotid, ninka meeluu ku dega ma helaayo, wuu carara. adigaa loo baahan yahay marka ninkaaga inaa haysatid, u naxariisatid. ninka cunugoo kale haddaa ugu naxariisatid, weligaa meelkaa ma aadaayo. hooyoo kale haddaa u noqotid, weligaa meelkaa ma aadaayo. adigaa loo baahan yahay inaad tustid raxmada iyo jaceylka inaad tustid loo baahan yahay. tus inaad tahay hooyo wanaagsan, tus inaad tahay xaas wanaagsan, tus u naxariiso adoo sunnada nebi maxamed sal alla alay slam ku daynayso. nebigaaga muxuu ku yidhi mataqaanaa? xabiibkaaga oo ku jecel muxuu yidhi mataqaanaa? gabadha haddii 4 arrin sameeyo 8 albaab jannaa laaga yeeraa. 5teeda salaad hadday tukato 1, bisha ramadaan hadday soonto 2, sharafteeda iyo xijaabkeeda iyo sharafteeda hadday ilaaliso, farjigeeda ilaaliso 3, ninkeedan ateecdo 8 albaab janno kaa rabtid ka galaa la leeyahay. allahu akbar. 8 albaab janno kaa rabtid ka galaa leeyahay. idan dardaaranka u dardaarmaya walaashii bisha ramadaan waxaa waaye noqo hooyo wanaagsan oo ilmo fiicano diin leh noo soo saar. ilmihii mustaqbalka bedeli lahaa noo soo saar. ilmihii adduunkan sharafta islaamka usoo celi lahaa inaad soo saartid. adiga waa qofka soo saaraysid. aabbana ma aha, macalinna ma aha, dawla ma aha. haddaa adiga soo saartid ilmo fiicanaa soo baxaa. haddaa adiga ka seexatidna adduunka waa burburaa ku talagal. sharaftaas iyo qiimahaasaa leedahay. booskaaga isgeey. soomaalida waxay tiraa meelaa madax ka tahay minjil iskama dhigo. adigaa u sarraysid adduunka. dhulka ha isdhigin, ha dhihin ani kana ligu sameeyey, ani naagaa lila guursaday, ani waxaa lii sameeyey, kana lii sameeyey. sharaftaada waaye. guri haddii lagu fariisiy sharaftaada waaye. ilaahayay ku abuuray miyaa ka taqaanaa xikmadda oo alaa yaclamu man khalaqahu latiifu lkhabiir. hadduu ku yidhi gurigaaga jooga, ninkaaga ateec, ilaahayay ku abuuray miyaa kaa yaqaano dadka kalo, mise dadka kalaa naftaada kaa yaqaano? ilaahay yaqaanaa leedaha. idan ilaahayga axkaamtiisa waaye. raxmaddu nebiga uu kuu soo diray kuu naxariisanayo waaye. idan waxaa loo baahanya inaad hooyo wanaagsan noqotid, xaas wanaagsan noqotid. reer galbeedka bidaa dadka joogo, nimanka waxaa loo baahan yahay inaad soo jiidaan oo guriga keentaan. ninkan wax kalaa jiidanayo. gabdhaha walaalihi waxaa rabaa inaan udiin sheego waxyaalo badan oo ogeenaa jirtaan ogahay. nimankan wax badanaa jiidanayo, meela laga jiidanoyaa, meelo kalaa laga jiidanoyaa. adiga haddaad soo jiidi weysay inuu toos u baxaa laga yaabaa. haddaa adiga sii riix, nin la jiidaya haddaa sii riixeed ka waran, fakatax uu leeyahay. kharaj walam yucud, uu baxa marka lama soo noqonayo. idan gabarta walaashii qaaliga waxaan rabaa inaan dhaho hooyo wanaagsan oo naxariis la noqo, xaas wanaagsan oo naxariis la noqo, hooyo wanaagsan oo dulqaad la noqo, xaas wanaagsan oo dulqaad la noqo, xaas wanaagsan oo dadka soo dhaweysa noqo. ninkeeda jecel, ehelkiisa jecel, qaraabadiisa jecel, caruurtiisa jecel, u naxariisato noqo. hooyo noqo. hooyada wax walba caloosheeda waa ka soo baxaan, kullina way haysataa. cunug ciyaal suuqa ah iyo cunuga mujrimka ah iyo cunuga tuugga ah iyo cunuga wadaadka ah hal caloolay ka soo baxeen. hooyadii dhashayna way haysataa, kulli way fiican yihiin. way ogta cunugeeda meel xun ku socdo, laakiin inuusan ka go-aynin ogtaa. waxay rabtaa u yeeranaysaa, wanaagiisay rabtaa. hooyo saas oo kale noqo. khayr allah ha ku siiyo. ilaahi subxaana watacaala ha noo xifdiyo hooyooyinka. gabdhaha soomaalida waa ku faanaa, waa gabdho sharaf leh, xijaabkooda ilaaliyo, badidooda
inta xun waa nagu yartahay xataa feminismka haddana soo galay aada ugu yaryahay gabar maalin waxaan wada hadlaya oo dadka feminismka wada hadlayna weli xishoodkiyaa ku jiro meelaa laga jiidanayaa siiradii ma taqaana caleeshaano nabiga ma baranin meeshii beenta u hormartay diintiina way jeceshahay laakiin meeshaana ibr meel markii hadda fiiri miisaanka markii la saaro markuu saan yahay kee degaaya kan culeyskaa degaaya beentii iyo waxaa u hormartay fasaadkiiya xoog badan laakiin meeshan weli way jecesha khayrka waa jecesha laakiin waxba kuma jiraan soo kici karto way ku ixtiraamaysaa laakiin way ku ixtiraamaysaa marka gabdhaha Soomaalida waa gabdho wanaagsan khayr qabo waaye waxaan rabaa gabdhaha walaashi inaan dhaho hooyo wanaagsan noqo xaas wanaagsan noqo walaal wanaagsan noqo aan kugu faano adiga meel la geyn kartid sharafta Soomaalida adaa meel geyn kartid adaana hoos dhigi kartid aan kugu faano dhahno kale maalin dhaweed wadan waxaan socday Qaahiran joogdadaas ayaraas la soconi gabar jilbaabka weyn wadata arkay gabadhaas xijaab waxaana Soomaali waay ma taqaana ma qaan dhabarkeeda wajeedin dhabarkeeda u jeedaa marka xoogoo socon waa socodkan boobsiin waa fiina Soomaali soo kuma dhin see ku garataa lagu dhahay xijaabkaas weyn marka aragtidaan dhawaa gabar Soomaali Allahu akbar marka waa idin ku faanay waxa loo baahan yahay faanitaanka in meesha idin geeni ina ka sii kormartaa ma hoos aga soo degina إلهي سبحانه وتعالى وحاول يديسنينا الدنبينا إنه ضعفه دنبي والدكينا نقول ضعفه جنة الله نقول كل مي اللهم آمين إلهي سبحانه وتعالى وحاول يديسنينا بشهر رمضان تذكر نارت البحرية الله نقول درو تذكر ليلة القدر الوافجي الله نقول درو جنة الفردوس الله نقيلي إلهي درتي سائدين جعلها إلهي درتي سائدين جعلها رمضان كمان برنامج كشيكيني رمضان كان كشيكيني مردونا أسألك دونا إن شاء الله تعالى جزاكم الله خير بارك الله فيكم والله إلهي درتي سائدين جعلها أن سودعون إلهي دين حفظي اللهم إنا نسألك الجنة ونستجير بك من النار إله جنة كويديس النار كامل ينقلني إلهي ودك نور هجاجي إلهي ودك نور هجاجي إله قفك ابن قوض إله نقبو إله دولة حوق له شرف له قيمة له وأمد جعلوا كينيسو إلهيو نوكين إلهيو وحي حمان قوة دولة إله كقو إله وحي حمان قوة كقو وحي وناق وضن إله نوكين وحي حمان وضن إله نقاجي اللهم آمين إله شعبي قلبي قوة السكين إله شعبي قلبي قوة السكين عقددي عداوة كسر إله صومال ويكرا فردسنتي إله السكين ودن إيكسو أروران إله هجاجي يا رب اللهم آمين إلهي جنة نقول كل مي جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم إلى درس سيدي جعلها وحان جعلها إنه مهد عليو ذاتك برنامج كان سوق من قابي كان أهان ولالك يزيزو خير الله سيو وحان جعلها إنه مهد عليو برنامج كارونتي أسا جهد بدن كلية سيدا صوت دوبي سيدا كرو يونيفرسال تي في إلهي سبحانه وتعالى إيقنا حفظيو برنامج كان خير الله يدين سيو كل جينا جنة الله نقول كل مي آمين جزاكم الله خير بارك الله فيكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام بمورا الله نبي كريم ونور هدى